السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibrahim Aadam aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin taageeradiina waxaanu gaarnay 10,000 oo saaxiibo yani wax yar ma ahan in 10,000 oo qof ay ku xiran yihiin channelkaaga laakiin guys waxaan idinka codsanaa ayadoo sidaas ay tahay oo 10,000 oo saaxiibo inagu xiran yihiin oo subscribe ay saareen haddana muuqaalka viewskiisa aad iyo aad ayuu hooseeyaa fadlan muuqaalka markii aad daawato like saar muuqaal kasto aan soo dhigno haddii aad like saarto insha Allah waxa dhici doonta inuu viewska kor u kaco muuqaalkan waxaan rabnaa inaan oga jawaabno su'aalihii aad igu soo weydiiseen muuqaaladeeni u dambeeyay waxaanu ka jawaabi doonaa haddii ay noo suuro gasho ilaa 10 su'aalood ayaanu ka jawaabi doonaa haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta haddii aadan weli subscribe dhihin channelka fadlan subscribe saar sidoo kale tana asxaabtaada ama familkaagana u share garay oo la wadaag si ay channelka ugu soo biiraan ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta Okay, haddii aan ku hormarno su'aashiina ugu horeyso waxaanu soo weydiiyey Salmaan Cabdullaahi Okay, Salmaan wuxuu yiri adigoon xifdin erayada sideed u xasuusan kartaa yani su'aashiisa waxay tahay adigoonan xifdin erayada sidee macquul ku tahay inaad soo xasuusato run ahaantii erayada haddii aad xifdisid kuma suuragali doonto in aad xasuusato xataa haddaad xifdisid hadhowti waxaa kugu adkaan doonto inaad hadasho oo markaad hadlaysid aad isticmaashid sababtoo ah waxani waad xifdisay jawaabta aan maaragtay ku soo jawaabay markii su'aashaada soo weydiisay waxay ahayd wadadan ku tusay haddaad raacdo ama marto waad xasuusanaysaa ama waad xasuusan doontaa wadada aan ku tusay waxay ahayd markaas muuqaalkaas ayaan uga hadlayay inaad ereygii aad heshay ama markaas aad rabtid inaad baratid inaad baaritaan ku samayso inaad baartid ereyga inaad Google-ka geysid inaad ChatGPT geysid example la weydiisid iyo jumlada inaad ku samaysid marka ereyga markii intaas aad samaysid waxa dhici doonto maskaxdaada inay training u noqoto ama ay tababar u noqoto oo ereygaas hadhow ay xasuusato maadaama aad wada badan marisay ereyga maskaxda waxa u suuragali doonto in ay maaragtay xasuusato hadhowti waliba si fudud ay ku xasuusan doontaa haddii aan u imaano su'aasheena labaad waxay tahay waxaanu soo weydiiyey gabar la yiraahdo Raxmo I think Raxmo okay waxay tiri spellingka igu adag please help me okay spellingka kaligaaga ma ahan badana boqolkiiba 50 ama 60 dadka ma aragtay luqadda Englishka yaqaano ama bartay spellingka erayada qaar wuu dhibaa xitaa waxaad arkaysaa dadka qaar ee u dhashay for example hadda waxaan arkay muuqaal ma aragtay laga soo duubay arday ama wiilal ma aragtay England u dhashay yani waa Britain English waa luqadooda ay ku hadlaan laakiin haddana sidaas ay tahay markii spelling erayada qaar la weydiiyo yani way ku adag tahay yani waxbay ka tagayaan so horto spellingka si aad u hormarisid waxa u baahan tahay laba qodob ama ilaa saddex qodob ayaa u baahan tahay waxaad sameynaysaa ma aragtay midda ugu horeyso read more English as you can waa inaad English badan akhrisaa waa inaad waxyaalo badan English ahaan u akhrisaa oo aad ku dadaashaa taas waxay keeni doontaa maskaxdaada erayada qaar markay akhrinayso maaragtay inay la qabsato akhrintii qodobka labaad oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad qor maalin kasto yani xoogaa jumlada ah waa inaad qortaa ilaa 3 jumladood maalin kasto qor isku day inaad qorto maadaama waxaan aad baranayso oo juhdi ku bixinayso caqabad ay kugu tahay fadlan waa inaad waqti ku bixisaa so waxaad sameysaa jumlado qor sidoo kale midda saddexaad u baahan tahay waxay tahay waa inaad soo iibsataa ama heshaa spelling book waa inaad sameysataa taasoo ka caawin doonto ma aragtay erey kasto kugu cusub inaad ku qorto ku diiwaan geliso markaad qorto dhowr maalin ka bacdi haddana waa inaad ku laabataa oo aad qortaa si aad u fiiriso bal maskaxda inay la qabsatay okay waxaan u gudbaynaa su'aasheena saddexaad xogaha way dheer tahay I think waxaan soo weydiisay gabar Iki Cabdi oo qoranta I think Ikran inay ka soo gaabisay ani Englishkayga waxa jiro erayo aan ma aragtay aqaano oo advanced ah yani erayo advanced ah ayay taqaanaa iyo jumlado gaagaaban inay ka wadaan aan u malaynaa waxa jiro in aanan aqoonin erayo qaar ka mid ah intermediate-ka dadka qaar marka waxay dhahaan ay leedahay sidee macquul ku tahay inaad taqaano yani advanced adigoon intermediate aqoonin marka maxaa talad siinaysaa sidaas ay tiri su'aasheedu waa sidaas taladeeda inta aanan gaarin already waxa jawaab ku siiyay gabadha ay ugu qoran tahay burji adag waxayna tiri erayada sida loo barto kuma xirna heerka luqadda sida beginner ama intermediate iyo advanced waxay ku xiran tahay sidaad u maqasho kandhagtaada ku soo horeeyo marka kaas aad maqashay qabo then heerar kala duwan raadi yani heerarkiisa kala duwan raadi sida heerkiisa intermediate ko kale ku raadi
ما aragtay saas waa samayn kartaa yani waa very important midaas waa samayn kartaa because ereygan aad taqaanid oo advanced ka ah waxaa jiro ma aragtay ereygaas siyaabo kale loo isticmaalo ama siyaabo kale la yiraahdo ama loogu dhawaaqo markii la joogo intermediate ka marka ereygaas aad taqaanid oo advanced ka ayaa waxa sameynaysaa asaga qabo kadibna raadi yani qaab kale oo intermediate ah ku raadi ChatGPT ayaana ka caawin kara arintaasi aniga jawaabta kolan ku siina ama kula talinaya marka waxay tahay inaad samayso adigoo YouTube ka daawanayo ama movies-ka waxa jiro simple English lagu hadlo yani waxa jiro sheekooyin ama movies ama YouTube-yada qaar oo maaragtay simple English ku hadlayo raadi kuwaasi kadibna ayaka isticmaal dhageyso halkaas waxaad ka heli doontaa erayo maaragtay intermediate ay advanced isku jira marka waxaad kala fahmi doontaa ama baran doontaa erayo badan oo advanced halkaas ka baran doontaa sidoo kale waxaad samayn kartaa inaad akhriso sheekooyinka ku qoran simple English-ka sidoo kale waxaad samayn kartaa naftaada kula hadal English adigoo kala sheekeysanayo your daily routine-kaaga sida maaragtay inaad shopping aadayso kale markaad travel gareynayso ama wax markaad sameynayso inaad naftaada aad kula sheekaysato aad dhahdid maanta waxaan rabaa in halkan maro sidaan sameeyo sidoo kale to keep your advanced words ereyadaada advanced ka ah hayso ha iska dhumin yeena ka dhumin waa very important adigoo markaas hadana maareynayo ama baranayo ereyadaada intermediate ka ha ilaawin sidoo kale to jawaabta burji adag ay ku siisay haddii aan u gudubno su'aasheen xigta ayadana waxay tahay aniga luqadda iga go'an tahay inaan barto inaan ku hadlo waxa ugu horeeyo aan doonayo inaan sameeyo maxay tahay waxaan u arkay inaan ma aragtay aadan waxba aqoonin oo hadda aad rabtid inaad bilowdid luqadda barashadeeda adiga su'aashaada jawaabteeda su'aal kale oo aan rabo inaan ka jawaabo ayaan ma aragtay ku dul xiri doonaa okay su'aashaas ayaan ku dul xiri doonaa haddii aan u gudubno su'aasheena xigta waxay tahay ustaad aad ayaad u mahadsan tahay su'aasha ku weydiinayo waxa weeyaan channel ama film fiican oo la fahmi karo oo English soo geliya waxaan ka helay aniga Sam Sperry aad u mahadsan tahay ina ii soo jawaabtaan rajayna okay su'aashaada jawaabteeda waxay tahay aad iyo aad u mahadsan tahay ilaa intaas dad igu xirneed waxa tahay taageer aad u fiican ayaa tahay ilaahay ka abaalmariyo thank you so much marka waxay idin xasuusinaa guys please subscribe saara channelka asxaabtiina la wadaaga okay jawaabta su'aashan waxay tahay journalist badan horta waan idin la soo wadaagay horaan idin kugu la soo wadaagay journalistkaasna waad ka dhaxbaari kartaa channel kale oo aad ka heshid mar kale haddaan kugu soo celiyana sida channelka Iman Gachi oo kale sida maaragtay waxa jiro yar kale oo la yiraahdo asagana Ali Abdallah yani journalistkaas haddii aad daawatid I think they will help you ayakana okay haddii aan u gudubno su'aasheena kale waxay leedahay assalaamu calaykum ustaad aad ay u mahadsan tahay waxaan ku weydiinaa ustaadi sideen ku xifdin karaa erayada fudfudud oo aan u soo xasuusan kara yani marka ku hadlayo yani markay hadlayso waxa dhibayo erayada in ay soo xasuusato sidaas ayaan u fahmay okay su'aashan jawaabteeda marka waxay noqon doontaa run ahaantii erayada fudud si aad u soo xasuusitid waxaad u baahan tahay inaad sameyso marka ugu horeyso practice samee maalin kasto waa inaad practice sameysaa kulama aad practice sameysaa waa kulama aad la qabsato erayada oo aad xasuusataa oo aad xasuusataa sidoo kale waxaa sameynaysaa erayada jumlad geli yani erayada ma xifdin kartid xifdiska wuxuu noqon doonaa inaad ilowdid waad hilmaami doontaa haddii aad xifdisid 100% I'm sure ama waan hubaa inaad hilmaami doonto haddii aad xifdiso marka waxaa sameysaa erayada jumlad geli isku day inaad isticmaasho practice-na ku samee yani maalin kasto practice inaad sameysid isku day practice makes you perfect okay su'aasheena xigta ee toddobaad haddii aan u gudubno waa su'aasha aan rabo inaan uga jawaabo gabadhii aan dhahay gabadhii beginner-ga ahayd oo rabtay inay hadda bilowdo luqadda waxaan soo weydiisay Nasra waxay tiri qof B1 ah intermediate 1 ah roadmap noocee ah ayaa kula talin lahayd inuu raaco kaasoo daily ku dhisan oo maasan tahay okay su'aashaada aad iyo aad ay muhiim u tahay waxa jiro muuqaal aan ooga hadlay su'aashaada oo aad iyo aad ku anfici doonto wadooyinka aan ku sheegi doono ayaadna mari doontaa okay wadada ugu horeysa waxay tahay subax kasta markii aad soo kacdid naftaada waa inaad u sheegtaa inay qorto maalinkaas waxaad rabtid inaad sameysid adigoo isticmaalaya luqadda English ahaan ayaad u diiwaangelin doontaa waxa aad rabtid maalinkaas inaad qabatid number 2 waxaad daawan doontaa muuqaal YouTube-ka ku jiro oo English 10 daqiiqo
يعني مقال 10 دقيقة oo YouTube-ka ku jiro ayaa daawan doontaa naftaada waa inaad ku qasabtaa in ay daawato 10kaas daqiiqo markaad daawatid waxaa kaaga soo kordhi doona ereyo cusub ereyadaad hore u taqaanayna waa laga yaabaa inaad ku aragtid ereyo cusubna way kaaga soo kordhi doonaan markasto waxaa qasaba 3 ilaa 5 erey inay ku soo kordhaan okay shantaasi erey ama saddexdaasi erey wadadan isku ogeyn oo aan idin sheegay mari oo ah inaad Google ka geyso inaad ChatGPT exampleskiisa weydiiso iyo jumlada inuu ka siiyo inaad jumlada mariso waa inaad sidaas samaysaa kadib midda saddexaad waxay tahay practice waa inaad samaysaa practice makes you perfect so practice waa muhiim practice badan waa inaad samaysaa maalin kasto waa inaad 10 daqiiqo naftaada aad siisaa okay su'aashaada sidaas ayaan uga jawaabay intaas haddii aad samaysid I'm sure inay wax badan iska ka bedeli doonaan okay su'aasha sideedaad haddii aan u gudubno waxaan soo weydiisay hani gabar ay ugu qoran tahay okay anigu markastoon isku dayo in aan kor u qaado heerarka luqadda Ingiriiska waan ka fiicnaadaa sidaan horay u ahaa laakiin mushkiladaydu waa inaan joogtayn talo ma joogtayso way fiican tahay wax fahankeedu fiican yahay luqadda markasta isku daydo kor ayay u qaadaa laakiin ma joogtayso that's her problem markasto aad baranayso ama aad maaragtay daraaseynayso ayaa nafta ka badisaa nafta yani waxayna qaadi karin ayaa saarta marka take it easy fududee joogtayn la'aanta dhammaanteen waan qabnaa wax kastana joogtayn ay maaragtay heer looga gaaraa wax kasta joogtayn ayaa heer looga gaaraa 100% okay so marka waxaan joogtayn la'aan ma shaqaynayaan isku day inaad maaragtay aad nafta markaad hadda luqadda Ingiriiska baranayso ha ka badinin okay ha iska badinin ku bilow si caqli ah tusaale 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo maalin si yani maalinkii waa inaad siisaa 10 ilaa 15 daqiiqo si tusaale 5 daqiiqo oo dhageysi ah subaxdii samee iyo 5 daqiiqo oo practice ah habeenkii samee marka ama fiidkii so mid saddexaad waxaad samaysaa calendarka ama saacada ku buuxso 5 daqiiqo maalin kasto naftaada ku qasab 5 daqiiqo subaxdii dhageysi ah iyo 5 daqiiqo practice habeenkii inay samayso naftaada ku qasab oo joogtee sidaas samee marka naftaada ku qasab oo focuska saar focus garee waxa aad doonayso inaad horumar ka gaarto waxaan rajaynayaa maaragtay inaan su'aashaada aan kaaga jawaabay haddii aan u gudbo marka su'aasha xigta ama sagaalaad haddii aan u gudbo waxaan soo weydiiyey Ibrahim Teacher, I understand English 90%. I can watch a movie without subtitle. I know English words, but they are not active. When I want to use them, I cannot remember them. Okay, I cannot remember it. Okay, that's the correct way. What is your suggestion? Taladaada maxay tahay? I hope inay soo jawaabiso. Okay, waan ku soo jawaabaya. Su'aashaada waxay u qalantaa in muuqaal laga sameeyo. Waxaan ka sameyn doonaa muuqaal dhammaystiran bilow ilaa dhammaad. Okay. haddii hadda aan jawaab yar ku siiyo bilow inaad practice samayso ama aad si daily ah aad ugu hadasho luqadda maadaama aad taqaan oo wax aad fahmaysid problemkaagana speaking uu yahay speaking samay caqabada waxa caqabad ah la sameeyaa so maalin kasta waa inaad practice samaysaa aniga ku qoray okay laba raadi shakhsi aad la practice garayso yani waa inaad heshaa qof aad la practice garayso ama isticmaal ChatGPT si aad ula practice garayso ama ila soo xiriir aniga ayaa kula practice garaynayo ila soo xiriir Instagram-kayga ama Snapchat-kayga igala soo xiriir kadibna aniga ayaa practice kula sameeynayo laakiin it's not for free you have to pay me okay there's nothing free okay waxaan rajaynayaa marka su'aashaada inaan halkaas uga jawaabay muuqaal ayaana ka sameyn doonaa jawaabta su'aashan yani muhiim waay okay su'aasheena u dambayso waxay tahay su'aalan qaba waxaan soo weydiiyay warsame su'aal waxaan bilaabay barashada luqadda Ingiriiska 2024 dhexdiisa 2024 dhexdiisa hadda alxamdulillah waan ku hadli karaa waa fiican tahay ma sha Allah yani you're so amazing waxa samaysay nala soo wadaag commentiga nagula soo wadaag okay inkastoon weli aan noqonin perfect okay weli perfect mati ustaad qasab miya inaan barto grammarka mise waan iska dhaafi karaa su'aashaadu waxay tahay grammarka ma baran karaa mise waan iska dhaafi karaa soo maaha okay haddaba grammarka qasab maaha inaad marka ugu horeyso speakingka intaada sameynin ka horba grammar inaad barato xooga saarto English grammar waay problemkan haysto Soomaaliya dadka jooga oo dhan problemkooda waxa waaye iskuulka ay tagayaan grammar leh lagu baraabo war anagu naxwahan fiiri dadka u dhashay Englishka ku hadla grammar hadda wax ka wad example yaran ku siina imtixaanka dawladda markaad galaysiin ama dadka imtixaanka dawladda galaayo
Soomaaliga muxuuna u jirin qof boqolkiiba boqolkeena ma jiro 80 70 qaarkood waaba dhacaanba sababtu maxay tahay naxwaha waaye naxwo ayaa lagu keenaa imtixaanka sidaas la ajligeeda ma shaqaynayso maaragtay inaad naxwaha wada barato okay so kuma dhahayo ka tag ha baranin grammar kuma dhahayo grammarka waa inaad barataa basic grammar yani meelaha qaar waxa jira muhiim ku ah si maaragtay ereyada qaar aad iskugu xirtid ma fahantay laakiin kuma dhahayo grammarka dhan bar kuma dhahayo marka fix common mistakes over time si tartiiba asaa u hagaagayo focus communication first start speaking even with mistakes yani qaladaad adoo samaynayo hadalka samay hadal okay speaking samay qaladaadkaaga samay goolku wuxuu yahay in lagu fahmi karo adigana wax fahmi karto markasto perfect inaad ahaatid muhiim maaha so grammarka si tartiiba asaa u hagaagayo use what you learn immediately grammar aad baratay hadduu jiro sida ugu dhaqsiya badan u isticmaal intaad baratay buug ku qortay ha ka tagin isticmaal practice ku samee okay laakiin grammar badan waqti ha iskaga dilin ayaan ku dhihi lahaa muuqaalkan aad iyo aad ugu dheeraaday inaan laba qaybood ka dhiga ayaa fiicneed su'aalo kale weli sii jiro intaas ayaan jeclaaday inaan maanta ka jawaabo waxaan rajaynayaa maaragtay su'aalihiina sida ugu wanaagsan inaan uga jawaabay oo aan dadaalay ayaan rajaynayaa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fadlan waxaan ku leeyahay channelka ku soo biir subscribe saar asxaabtaada la wadaag iyo familkaaga ku raaxayso noloshaada assalaamu calaykum